Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii habeen wanaagsan. Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan mar kale kula wanaagsan dunida meel walba oo aad ka joogtaan qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska diiday inuu magaalada Dhuusamareeb kula kulmo sidoo kalena kula heshiiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo jeeda beesha Habargidir oo muddo ku sugayay magaalada Dhuusamareeb wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho safarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo deegaanada Galmudug waxa uu sabab u noqday inay kala jabaan beesha Habargidir qodobada iyo qodobo kale xiiso badan ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan magacaygu waa Cabdullaahi Balwan barnaamijkan wuxuu gaar u yahay channelka Aftahan Video Production waana macquul inaad ka dhageysanayso channel kale oo copyright-ka aan ixtiraamin isla markaana si xatooyo ah u soo qaatay barnaamijka ee hadduu channelku ahayn Aftahan Video Production ugu waa channel aan xaq u lahayn hanashada barnaamijka habeen wanaagsan sidaa darteed baadi goob hadduu yahayna ku sugnow channelka Aftahan Video Production haddii aad subscribe tirado waxaad helaysaa barnaamijyo tayaysan oo adiga ku raali gelinaya waana mar kale iyo barnaamijkii habeen wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan mar kale kula wanaagsan dunida meel walba oo aad ka joogtaan qodobo xiiso badan ayaa foodayda ku soo haya qodobada gordhow aad maqli doontaanna waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iska diiday inuu magaalada Dhuusamareeb kula kulmo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo jeeda beesha Habargidir faahfaahin ku saabsan diidmadaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan balse marka hore wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta faahfaahin ka bixisay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho wasaaradda ayaa soo bandhigtay macluumaadyo ku aadan qaraxii maanta iyo dhibaatada uu geystay sidoo kalena wasaaraddu waxay farta ku fiiqday baaq ballaaran oo dhinaca amniga isla markaana loogu jeedinayo shacabka Soomaaliyeed afayeenka wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdifataax Xildhibaan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa dhan walba warbaahinta u soo bandhigay arrimo ku aadan qaraxii maanta iyo waliba waxyaabaha uu geystay sidoo kalena waxa uu afayeenku carabka ku dhuftay in sugidda amniga magaalada Muqdisho wasaaradda amniga iyo ciidamaduba ay u diyaar garoobeen waa kan afayeenka wasaaradda amniga oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay waxaan maad celinaynaa marka hore laamaha warbaahinta madax bannaan gaar ahaan kuwii soo gaaray goobta uu shilka ka dhacay oo inta u dhaxaysa jaamacadda Savana iyo jaamacadda Afrika oo ku taala wadada xariyaale ee magaalada Muqdisho waxaad arkaysaan arxan laawayaasha duulaanka ku aqrannimada iyo madax bannaanida dhulkeena qalabka ay u isticmaalayaan sidii ay waxyeello ugu geysan lahaayeen isla markiiba goobta shilka uu ka dhacay oo ay marayeen ciidamo ka tirsan booliiska waxa soo gaaray ciidamo gurmad ah ma jiraan wax khasaare ah oo haba yaraatee soo gaaray ciidamadeena iyo dadka rayidka ah ee goobta ku sugnaa labadaba waxa qaraxyada dhulka lagu aaso ee loo yaqaan miinooyinka waa arkaysaan darbiga iga dambeeya khasaaraha uu geystay waa wuxuu ilaahay ku ekeysiyay halkaan aad arkaysaan ee ah darbigiina ma dumin laakiin qalabka ay adeegsadeen waxa kamid ah sida laamaha dambi baarista ama marka ay qaraxyo dhacaan qalabka aan helno waxay tani marqaati u tahay ujeedadoodu inay ahayd in ay ku xasuuqaan ciidan ka tirsan dawladda ama ay dhibaato ugu geystaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waad arkaysaan in ciidamadeenu ay had iyo jeer har iyo habeen u taagan yihiin sidii ay u badbaadin lahaayeen nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in arxan laawayaasha dhagarqabayaasha duuga ama aasa miirooyinka xaafadaha iyo guryaha ay ka soo baxaan waa taqaaniin waxaan idinka codsanaynaa in aad noo soo sheegtaan haddii shaki ama tuhun uu idinka galo qof kale ama muwaadin kale oo Soomaali ah dhaqdhaqaaq uu samaynayo waa mahadsantihiin Somali weynay haben wanaagsan Somali weynay haben wanaagsan
safarka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu imika marayaa deegaanada hoostaga maamulka Galmudug State isagoo cagta soo mariyay dhinaca kale maamul goboleedka Puntland markii uu soo gaaray deegaanada Galmudug waxa si habsami leh oo ay ka muuqato farxad dowladnimo u soo dhaweeyay shacabka Galmudug State iyadoo lagu soo dhaweeyay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado markaynu socdaalka inta badan dadku way ka warqabaan aynu inta uga gudubno waxa jiray arrimo hoose oo guracan isla markaana uu sababay safarka madaxweynaha uu ku maray deegaanada Galmudug State waxay la socotiin in beesha habargidir inta badan ay degto deegaanada Galmudug State magaalada Cadaadana ay si gaar ah ugu badan yihiin beesha reer Xaaji Saleymaan iyaga oo si weyn beeshaasi u soo dhaweysay maamulka Galmudug gacmo furan iyo waliba kalgacayl iyo niyad wanaagna uu kala kulmay maamulka Galmudug State hase yeeshee maanta maxaa dhacay markii uu soo gaaray magaalada Cadaado madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa durba loo gudbiyay dacwad ka dhan ah madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaaf oo reer Cadaado u soo gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya dacwadaasi ayaa ah inuu madaxweynuhu ka jawaabo bal inay xaq u leeyihiin dawladii ay ku soo tiiriya tacabeeleen reer Cadaado in xilligan si fudud magaalada Dhuusamareeb loogu raro iyadoo aan waliba la siinin fursad haba yaraatee magaalada Cadaado ma jirto madaxweynaha Galmudug ixtiraam haba yaraatee oo reer beesha waa reer Xaaji Saleymaan beesha habargidir gaar ahaan Saleymaan oo siiyay maadaama magaaladoodiina oo waqti ku soo qaatay xitaa lagama dhigin magaalo fariisimo uu noqon doonto baarlamaanka Galmudug sidoo kale lagama dhigin magaalada ganacsiga Galmudug haba yaraatee darajo la siiyay Cadaado ma jirto waxayna dantu kaliftay madaxweynaha Soomaaliya beesha reer Xaaji Saleymaan ay u gudbiyaan madaxweynuhu waa uu ka dhageystay markii hore hase yeeshee markii dambe wafdiga Galmudug State gaar ahaan wafdigii Axmed Ducaale Geyle Xaaf ayaa u sheegay inaysan waxba dhag jalaq uusan u siinin madaxweyne Farmaajo isagana dhaqaaqo reer Cadaadana iyagu ay iskood isku qancin doonaan madaxweynuhuna wuxuu qaatay amarkii ama hadalkii ka soo yeeray wafdigii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaaf halkii ayaa looga dhaqaaqay reer Cadaado iyagoo aad u caraysan go'aan waxa ay qaateen beesha reer Xaaji Saleymaan inay dib u soo celiyaan maamul goboleedkoodii ahaa xubin iyo xeeba Cadaado ayaa sida u gubanaysa dhanka kale Dhuusamareeb ayuu madaxweynuhu afka saaray Dhuusamareeb markii uu aad ugu dhawaana waxa ka hor yimid ciidamadii ahlu sunna wal jamaa waxaana loo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ciidamo fara badan uu gudaha magaalada Dhuusamareeb la geli karin sida darteedna waxa la yiri ciidamadu ha joogaan daafaha magaalada Dhuusamareeb 20 askari oo kaliyana adigu la soo gal magaalada Dhuusamareeb halkii ayuu madaxweynuhu codsigu tixgeliyay isla markaana uu soo aaday iyadoo durbadiiba gacantii Axmed Ducaale Geyle Xaaf lagala baxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa haddana isla cayr habargidir gudaheeda waxay isku khilaafeen qaabka madaxweynaha loo gaarsiin karo Guriceel iyo waliba qaybo kamid ah beeshaasi oo wali cuqdad iyo waliba cara u qabta ahlu sunna wal jamaa maadaama xubno sare oo kamid ah beesha habargidir cayr lagu dhibaateeyay magaalada Dhuusamareeb cayr qudhiisa ayaa laba garab ah maadaama Dhuusamareeb gudaheeda lagu xiray mas'uuliyiin u dhashay beeshaasi qaar kamid ah wariyaasha ugu caansan dhinaca beesha cayr iyadoo aanan wax tixgelin la siinin qof ka soo jeeda beesha cayr hadduu yimaado magaalada Dhuusamareeb dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo socdaalka madaxweynaha deegaanada habargidir durbadiiba wuxuu abuuray in beesha habargidir ay kala jabto Cadaado beesha Saleymaan ayaa si gaar ah u xirtay waxa macquul ah inay ku dhawaaqaan maamul goboleedkoodii hore xubin iyo xeeb taasoo dib u keeni karta mar kale in Galmudug ay kala jabto cayr qudhiisa Guriceel iyo Dhuusamareeb ayuu kala qaybsamaa waxa macquul ah qolada Dhuusamareeb xitaa inaan ku faraxsanayn hanashada iyo magaaladaasi inay noqoto magaalo fariisimo u noqon doonto maamulka Galmudug State shalay Galmudug wuxuu ahaa xaafado kooban imikana waxa muuqanaysa in Galmudug ceel ku sii dhacayso iyadoo beesha habargidirna ay ku sii kala jabtay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wixii ku soo kordha socdaalkaasi iyo burburka beesha habargidir ee dhinaca isfahamwaaga siyaasadeed waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan mucaaradka diidan siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee beesha habargidir ka soo jeeda waxay maalmihii ugu dambeeyay ku soo qulqulayeen magaalada Dhuusamareeb iyagoo halka ku sugay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inay kulan la qaataan isla markaana lagu wada heshiiyo mucaaradka dhinaca habargidir iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo qabanqabada heshiisiinta mucaaradka beesha habargidir ka soo jeeda iyo madaxweynaha Soomaaliya waxa waday odayaal ka soo jeeda dhanka habargidir iyadoo halkaasna qabanqabadu ay mareysay
habeen wanaagsan ayuu maanta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku dhawaaqay inuu wax wada hadal iyo kulan bal la gali doonin mucaaradka la sheegay inay dhuusamareeb ku sugayaan isagoo sheegay safarka uu ku marayo deegaanada inuunan ahayn safar uu mucaarad kula heshiinayo uu yahay safar nabadeed uguna talagalay inuu shacabka iyo odayaasha iyo maamul goboleedyada kaliya u la kulmo hadduu mucaarad yahay shakhsiguna ama siyaasiguba uu dib ugu laaban karo magaalada Muqdisho haddii dawladdu ay gobol nabadeed fidiso ayuu sheegay xilligaasi inay wada hadli karaan laakiin waqtigan aynan munaasab ahayn in madaxweynuhu wada hadal ula furo siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Habargidir magaalada dhuusamareeb waxaa ku sugan Abshir Buqaari sidoo kale Axmed Macalin Fiqi sidoo kale Mahad Salaada waxaa kaloo muuqanaya in siyaasiyiin kale wali kaamirada ka gambanaya ay dhuusamareeb ku sugayeen asaga madaxweynuhu wuxuu yiri haba yaraatay siyaasi aan wada hadal la galaya ma jiro cidii doonaysa inay wada hadal dawladda la furtana dawladduuna ahayn kaliya madaxweynaha Soomaaliya dawladuna ay leedahay farqiyo kala duwan waa sida uu madaxweynaha Soomaaliya hadalka u dhigay mucaaradka diidan madaxweynaha Soomaaliya siyaasadiisa ee dhuusamareeb ku sugan ayaa caawa niyad jab iyo boholiyooba kala kulmay diidmada madaxweynaha oo ay suurtagal ahayd in ay kulan la qaataan hase yeeshee kulankaasi wuxuu noqday mid fashilmay madaxweynuhuna uu gaashaanka u daruuray madaxweynaha murtida hadalka haddaan u daadago ee uu ka qaatay mucaaradka diidan dawladdiisa wuxuu yiri anigu waxaan ahay madaxweynaha kaliya ee ma ahi qof dawladdo dhanba mas'uul ka ah sidaa darteed haddii wada hadal mucaarad lala furayo xukuumadda Xasan Cali Khayre ayaa shaqo ku leh anigu waxaan ahay madaxweyne waxaana u socdaalaya oo kaliya inaan nabadeyn iyo waliba indhayn aan deegaanadeeda soo arko waa sidoo hadalka u dhigay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wixii ku soo kordhay diidmada iyo waliba wajigabaxa ay la kulmeen mucaaradka diidan Farmaajo siyaasadiisa waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii habeen wanaagsan waan kaaga mahad celinayaa dhageysiga la socodka barnaamijka intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doonana waa Cabdilaahi Balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan